waa qiso xanuun badan. Ma garanaysaa waxa ku dhacay wiilkan yar? Aniga ayaa idiin sheegayo, balse intaanan u gudagelin qisadeena, fadlan muuqaalka like saar oo ina dareensii inaad muuqaalka ka heshay, iskuna daya inaad gaarsiisaan muuqaalka 5,000 oo like. waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkani, kuna soo dhawaada qisadeena. Qisadatan waxa ay ku saabsan tahay wiilkan yar. Wiilkani markii uu jiray 7 sano, hooyadiisu way xanuunsatay, xanuunkii awgeedna ayay u geeriyootay hooyadii. Intaa kadib wuxuu la noolaa aabihiina wax kasta ayuu u ahaa, oo wuxuu ugu jiray booskii hooyadii, kii aabihii iyo kii walaalihiiba. intaasoo idil waxa ugu jiray aabihii. Wiilkani markasta wuu fakiraa, wuu murugoonaa, isagoo soo xusuusanayo sidii ay hooyadii u dhimatay. Aabihii marka uu soo eego wuxuu ku dhahaa, maxaad ka fakiraysaa wiilkayga? Ha murugoonin. Hooyadaana waxay jecleed inay aragta anagoo faraxsan. Marka uu sidaa aabihii dhaho, wiilka waxa uu hoosta ka dhahaa, aabihii isaga xitaa wuu murugaysan yahay, oo aniga oo keliya ayuu farxad ii muujinayaa. Aabihii marka uu ku dhaho hadalka, oo ha murugoonin wiilkayga, isma celin kara, indhihiisa waxaa isla markiiba ka soo qubta ilin. Si haddii loo fiiriyana, xaqiiqdii murugada hayso wiilkiisa waxaa ka daran tan isaga hayso. Markasta wiilkiisa ayuu xanaaneyn jiray, isagoo aanan ka daalaynin. Subaxii ayuu soo toosin jiray, dharka ayuu u dhaqi jiray, cunnada ayuu u karin jiray, wax kasta ayuu u ahaa, boos kasta ayuu ugu jiray. Booskii saaxiibka asaga ugu jiray, booskii hooyada asaga ugu jiray, kii aabba asaga ugu jiray, kii walaal asaga ugu jiray, intaba asaga u buuxin jiray. Waxaa wax lala yaabo ah marka uu cunnada cunayo in wiilkiisa uu cunnada siiyo, kadib ilaa uu ka dharga wiilkiisa muusan cuni jirin wax cunno ah. Runtii waa arrin kale oo cajiib ah. Wiilkiisa markuu ku dhaho, aabba adiga ma wax cuntid, wuxuu ku oran jiray, aabba aniga gaajo ima hayso, ee adiga cun wiilkayga. Maalin maalmaha ka mid ah, wiilkii aabihii oo shaqo ka yimi ayuu wiilkiisa arkay isagoo daawanaya telefishinka. Deedna intuu TV-gii damiye ayuu ku yidhi, ma samaysay wixii iskuulka lagaaga soo diray? Wiilkii ayaa ugu jawaabay, maya ma samaynin, hadhow ayaan samaynayaa. Markuu aabihii TV-ga sidaa u damiyey, wiilkii intuu soo istaagay ayuu shitay TV-gii, wuxuuna aabihii ku yidhi, maxaad aabba ii niyad jabinaysaa? Hana i qasbin, hooyaday weligay sidaan iguma samaynin. Aabihii ayaa ku yidhi, orod wiilkayga oo samee wixii iskuulka lagaaga soo diray. Wiilkii oo qaylinaya ayaa aabihii ku yidhi, adiga ima fahmaysid, ma doonayo inaan adiga kula joogo. Maalin maalmaha ka mid ah, wiilkii waxaa afka ka soo gaaray dhaawac. Waa kana asaga oo gaatamayo, doonayana inuu guriga ku soo galo si tartiib ah oo aanan aabihii dareemin. Laakiin ugu dambeyntii aabihii ayaa ku qabtay, deedna wuxuu u soo qaaday wax uu ku daaweeyo. Wiilkii ayaa dhahay, markaan arkay aabihii sida uu ii xanaaneynayo, laga bilaabo maalintaas waxaan xaqiiqsaday in markasta oo aan dhibaatoodo ama aan ku suganahay dhibaato, aan khaldanahay ama aan saxanahay, waxaan xaqiiqsaday qofka keliya ee xanaaneynteeda u taagan inuu yahay aabbahay. Dhowr sano kadib, wiilkii wuu weynaaday, iskuulkii ayuu dhameeyey. Deedna wuxuu ku guulaystay waxbarasho lacag la'aan ah oo dibadda ah. Gurigii waxaa ku soo haray aabihii oo keliya, asagii laakiin wuxuu aaday waxbarasho dibadda ah. Balse markasta aabihii waa uu soo wici jiray. Markasta oo wiilkani aabihii uu taleefanka ka waco, aabihii waxa uu ka oran jiray oo keliya, wiilkayga keligaa ma tihid, aniga ayaa kula jiro. Aniga waan fiicanahay, hadda waxaan ku wareegayaa xooshka guriga. Muddo kadib waxaa dhacay, wiilkii aabihii waxa uu noqday indhoole oo aanan waxba arkin. Wiilkiisana umuusan sheegin inuu noqday indhoole, oo wuxuu diidanaa in waxbarashadiisa uu soo beeldareeyo, deedna uu asaga u soo laabto. Mar allaala marka uu soo wacana muusan u sheegi jirin oo uu ka qarin jiray. Maalin maalmaha ka mid ah, isaga oo aabihii waraabinayo geedihii guriga, ayuu maqlay codkii taleefoonka. Deedna wuxuu aaday xaggii uu ka dhacayay taleefoonka si uu u qabto cidda soo wacaysana uu ula hadlo. Taleefonkii ayuu qabtay. Qofka soo wacaya waa wiilkiisa. Wiilkiisii ayaa ku yidhi, see tahay aabe? Aabihii ayaa ugu jawaabay, waan fiicanahay wiilkayga, adiga sidee tahay? Wiilkiisa ayaa ugu jawaabay, waan fiicanahay aabe, ee maxaad hadda samaynaysaa? Aabihii ayaa ku yidhi, waan wareegayaa oo xooshka guriga ayaan ku wareegayaa.
geedihiina way qalaleen oo waan waraabinayaa. balse wiilkani waxba kama warqabo mana oga aabihiis inuu noqday indhoole. subaxaas uu la soo hadlaya aabihiis ayuu la kaftamayay oo wiilkani marka uu aabihiis soo wacayay wax yar ayuu u jiray oo 5 kiiloomitir ah. wuxuu doonayay inuu imaatinkiisa uu uga dhiga kadis, balse wuxuu meesha kula kulmay arrin uu aad ula argagaxo. markuu u soo dhawaaday aabihii waxa uu arkay aabihii oo indhool ah oo aanan waxba arkin. aad ayuu u naxay. aabihiis waxa uu dareemay in wiilkii uu u dhow yahay uusan ka fogeyn. taleefankii ayuu dhigay. wiilkii intuu u soo dhawaaday aabihii ayuu lugihiisa hoostiisa fadhiistay. wuxuuna ku yidhi, aabe, muddo intee leeg ayaa aabba sidaan ahayd? aabihii ayaa ku yidhi, wiilkayga wax kasta way saxan yihiin waana fiicanahay, wax dhib ahna ma jiro. wiilkii ayaa ku yidhi, maxaad aabba iigu sheegi weysay inaad sidaan noqotay? maxaad been iigu sheegtay aabe? deedna isaga oo ilmadii ay ka qubanaysa ayuu aabihii xabad ka geliyey. aabihii ayaa ku yidhi, waa ka xumahay wiilkayga, mana awoodin inaan waxbarashada kaa mashquuliyo. wiilkii ayaa yidhi, waxaan mar kasta u malayn jiray aabihii inuusan weligay qalbiga ka hadlin, balse markaan maanta ogaaday aan dib u jalleecay, waxaan ogaaday inaan qaldanahay. aabihii ayaa ku yidhi, is-adkay wiilkayga. intaa kadib wiilkii wuxuu bilaabay inuu xanaaneeyo aabihii sidii uu u soo xanaaneyn jiray yaraantiisa, weliba asagoo samaynayo ficiladii uu samayn jiray aabihii. taasoo ahayd, aabihii ayuu ku dhahaa mar allaala marka uu cunnada cunayo, aabba adiga cun, aniga waan dharagsanahay. wuxuuna cuntada cunaa marka uu aabihii dhargo sida uu yaraantii aabihii u samayn jiray. cajiib. inkastoo uusan aabihii u gudi karin abaalkiisa, haddana run ahaantii wuxuu ugu jiraa meel aad iyo aad u qiimo badan. qisadeeni quruxda badneed ee dhex martay wiilkan iyo aabihii halkaa ayay inoogu eg tahay. haddaba haddii aad tahay daawado ku cusub kanaalka, fadlan kanaalka kusoo biir oo subscribe dheh. sidoo kale waxaan kaa dalbanaynaa inaad muuqaalka like saartid, siina sheer garay haddii aad awooddo. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على الأحزان، الحمد لله الحمد لله تزيد فرح، الحمد لله تذيب ترح، الحمد لله تزيد فرح، الحمد لله تذيب ترح. الحمد لله الحمد لله على الأفراح، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان، الحمد لله الحمد لله تزيد أفراح، تزيد أتراح، تزيد أفراح، الحمد لله تزيد أتراح. الحمد لله على الإسلام أكبر نعمة من الهادي، الحمد لله أمن سلام تنعم فيها رب بلادي، الحمد لله تزيل الهم تشفى المجروح وتمنع الغم، الحمد لله تزيل الهم تشفى المجروح وتمنع الغم، الحمد لله بترضي الله يرضيك الله بها تنعم، الحمد لله بترضي الله يرضيك الله بها تنعم. الحمد لله الحمد لله على الأفراح، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان، الحمد لله الحمد لله تزيد أفراح، تزيد أتراح، الحمد لله تزيد أفراح، الحمد لله تزيد أتراح. الحمد لله مع الأذكار نرددها مساء وصباح، الحمد لله وفي الأسحار مع استغفار بكل دعاء، الحمد لله دوم وأبد، الحمد لله بقبل وبعد، الحمد لله دوم وأبد، الحمد لله بقبل وبعد، الحمد لله بها ترتاح يرزقك الله ببيت الحمد، الحمد لله بها ترتاح يرزقك الله ببيت الحمد. الحمد لله الحمد لله على الأفراح، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان، الحمد لله الحمد لله
تزيد افراح الحمد لله تزيد افراح الحمد لله تزيد افراح الحمد لله تزيد افراح الحمد لله الحمد لله على الأفراح الحمد لله الحمد لله